ماريا تدو ماشي إنك محكمة ويستا بششنتي محكمة عليها محكمة عليها عاوية. السلام عليكم سودو هذا خير تقاليق وحروا عاوينا كهالله ولكن عوالة آذن وأروسكيسي مر لواد دبو دعيو marka kura arooskiisi tolaya ku soo dhacay ma misxiis maaha balse laakiin odaygu inan kale ayuu wataa oo Maariya la yiraahdo lagu soo dhaweeyay dalka Djibouti ruuxaantii te markuu shaarka xumaado ina shaarka la iska wanaajisataa ayaa ku muhiim ah ya laakiin sidoo halka ku ooydo walaal bacaan adoo ba dib dareemaya mar walba adigu waa in haduu qof ka tago hadana وقف كلا كوي ما طاون مهمة يعني كلنا نقوم بوحوين وحنو هنبلينا عوالة آذن أروسكي سنة وحلا يروح كنا على جيبوتي ونسوقنا إن شاء الله بإذن الله كريم وحرجينا إنه نقضى كان كده لو كنا صنع ولو أن لدون إنك ودي دم هدية شبكة الرفات كيو قد قطة ولا صمرت عوالة آذن إيش قوان سامر كان إيش وقبنين دي قبل لا صمرتي ولو أن لدون إنه برسل لكن ما أنت نتوكل وتعالى سودويني وتمشي سودو ذكر عيسى ما قرتين سوال بها horto calafka ayaa mar walba qoran waxaan u maleynayaa imkan inuu xaaskiisan uu qabo mahdiya tan uu ku labaysanay malaadimooy adu gabadhun buu wata cala kulli xal laakiin anagu xaaskii hore aan taaganay bahda muweyntaanay anagu bahda mahdiyaan nahay way mahdiya wallahi boqolna uga soo guurso ku dhaay cawalaadana mahdiyana aqlamida ma soo helayso walaal macaan laakiin inta yaana bidaha gegelinde walaal iga raalno qaaduguna si walba haato oo hambalyeena walaalkiin cawalaadan waxa leenahay hambaliyo walaal macaan run ahaantii maalin dhow arooskiisa inuu dabaaldeganidee maanta uu arooskiisa kale inuu dabaaldegana waa wax ilaahay loogu mahadnaqo war markaan iyo mar walba iska guursadaniyo hadii shakadu ku xumaato oo hinaka la fadhisan walaalde nasiibka mar kale celi ugo maad maqal مرسل مسافر وركو هسي يا marka nasiibkiina marka la celiya waxaan arkayay iyaduna gabadh Soomaaliyeed oo ni Soomaaliyeed ku ooysiinayay oo rafaad badan iyo dhibaato badan mareysay oo ruuxaantii xitaa lagu tilmaamay gabadhaas inay waalan tahay gabadhii farax laga baastada carartaa waliba jeedaaye wallahi billahi jugteedii jamteeda la maqlayaan iyo wax kala iska sheekeynaysaa inantaas waa hooyo Soomaaliyeed oo cadilan horta hal mar faataxada oo mar asxaabay inuu ilaahay dhibka ka saaro intii hooyay dhibanba inuu dhibka alla ka saaro hal mar faataxada loo maro anaguna waxaan leenahay ilaahay waxaan ku leeyahay qalbiga ku qaboojiyo awlaadaadan uu ka qaadeen allaha kaaga reebo oo hintaada anaga wayna dhibaysaa way gabar Soomaaliyeed ayaa tahay gabar Soomaaliyeed oo aysan ruuxantii ma arki karno waxa ninka raggaas uu ka oran jiray ilaahay xaaskayga oo aysan tusin ilaahay qof nolol wada wadaagnayo social media ko iyo aniga dartay dhibaato anu ku sameeyay oo ilaahay tusin ilaahay rabbi raxmaan ay tusin ay lagu ducaystaa dadkana uu kala baratamayaan sida loo xumeyn lahaa dadka badanana waxa dhaawacma amba waxa dhibaato mara rag iyo dumar ba haadane waa qofka daacad ah hada daacad tahay wad dhaawacmaysa walaal macaan hada laakiin daacad hayn mudmo noqonaysid mar walba daacadeenu ruuxaantii marka qofkan wanaag u muujiso isaguna xumaan buu kuuga abaalgudaya way iska adduuyo qofkan waa bini aadan kowde wax walba waa laga fishaa adduunyada lagu nooliyana de walaal macaan wax walba horta way ka dhacaan wallahi bila adduunya la isku la yaabo maaha balse laakiin inantaan waxaan kula talin lahaa inay nafteeda ku mashquusho inay nafteeda dib waqti u geliso inay nolosheeda iyo awlaadeeda ay ku mashquusho laakiin waxay tiri awlaad yani nafteeda ninka ay muhiimsan يعني ساسو كلام horta gabadha ku bishaarayso lag inta saa u seexata tiraahdo aniga ninkaygu naagba ma guurso naagba ma eego anu buu jecday iyo tiraahdo maxay tahay ninkaygu wajib jir weysmeeyinba nin walba horta inta gurigaagu joogun buu niye walaal macaan ninku gurigaaga joogo inuu niye banaanka markuu kaaga baxo oo ka bax mid kale ma ogeyn bola saddexina ku keeneen afkiisa wax walba ma garanaysaa ku hayaan xaga ninka isku daba qoraysaa وني Soomaalidan anagaan Soomaali wallahi bilaa iga yaabiyo wallahi ya walaal macaan ilaahay awlaad buu ku siiyay waxaan ka waran lahaa mas'uuliyad ba awlaada laga saaray farax laga baasto maalin uu tagay buu tagayaa kowde tu walba faantaba maalin buu ka tagayaa mid inaan nin shageedo garanay qiimaha xaskiisa mooyee way saan fariihna soo sineen baan bini aadan ku noosnay hadaba muhiimadu waxa weeye awlaad buu alla ku siiyay
runaantii awlaadan wuxuu ilaahay ku siiyay inaad mas'uuliyadooda qaadid aad ilaalisid oo de waa amaano lagu dhibtay amaanadii lagu dhibtay dad ka soo bixi weydid de ma garan karayo wallahi billahi macnaheeda aan kama jawaabi karayo waa inaad garataa يعني waxa lagu dhiibay awlaadan lagu dhiibay macnaheeda mas'uuliyadda inaad qaadad ka soo baxdaa balse laakiin faarax hada tira I love you faarax adna I hate you xaliimo ayuu kugu jawaabaya ya marka amar walba lama daba carro ninka haduu ku qabayo haduu kula sheekaystaba walow aan dumar Soomaaliiskana ilaahay qalbi jilceen xaris nagu beeray haddana intaad ka fogaan kartiin intaad cadaadin karto lama cadaadiyo horta ragay waxa la wiil walaal wuxuu ku dhaama la waayay hadda nin stress ku xarif karo horta adunba ku jabiye laakiin haddana wax weyn bala iskaga madhigaba ninku baxaya ku kala imanaya ya doon wari walaal macaan habitu iska dhigniyo waan kula talinayaa marwalba hablaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inuu waxaan kula iyagu iscaawiyaan isgarab istaagaan inta wala la guursaday san maqlayay marna waxa la leeyahay uu ka tago u furay imkana maxkamad buu kula jiraa awlaadu rabaa inuu ka qaato miyaan ku habaarna walaal habaarnada kuma habaari karno wiil walaalka yaa tahay waan ku habaarnaa nin shayada to ajanibe ya inta oo inta kada oo dumarka walaal laga ma ooysiyo waa hooyada kale waa walaashayo kale waa ilmahana dhalay sidoo kale sidoo ugu qudho oohin dumarku wax oohin loo quuro maaha walaal macaan ku sheegay anu oohin wax loo quuro maaha waa naxariis alla idii dhiibay waa naxariis rabbi in ku deeqay alxamdulillah dhaho nin walba oo mar helay markaaga iskaga faraaday walaal macaan labadii afarta maxaad ka doonaysaa ha doono walaal ha doonan markii dumarku in ka gaboobaan at least doonto guursada laakiin hablahan yar yar niyada kaga ciyaarna deedii la wali ya marka aad iyo aad baa umahadsantihiin hablaha Soomaaliyeed ilaahay kor ka dhigo sharaftooda alla kor ka dhigo ilaahay murugada iyo dhibka ka saaro ilaahay wax walba ku faraxseen hor keeno ya ilaahay inamadaydan xumeynayna Allah noo wanaajiyo waxa la yiraahdo qofka marka aragtinu ku xumeyn waxa la yiraahdo ilaahay noo soo haday ya marka ilaahay hanoo ka soo rago hanoo ka soo celi ilaahay khayr maxay raadade soo nikir way ilaahay hanookin soo hanuuniyo barashada af Soomaaliga mar walbana anagu go'aan garab taaganay shaadkiina ka shaqeynayna gurigiina ka shaqeynayna awlaadiina kornayna wanaagiina jecelna sidaas oo kale anagana wanaagayga jecelaada aad iyo aad noo maasantiin waxay dileen muuqaalkan oo kale inta ku kulmi doono sidaas iyo mac salaama insha Allah bismillaah subscribe ayay noo balana bye bye ninka maxkamadu way istaabishay shanteeda maxkamada leeyahay maxkamada liiga caawiyo inuu ilmaha iga qaato rabaa ani wuxuu igu dacweynaa ma aqaani ani ma xanuunsanay dhakhtar way soo cadeeyna xanuunsaneen I don't know wuxuu igu dacweynaayo ma garanayo ilmahayga Maria todo nice Maria oo ku soo dhawaatay dalka Djibouti oo wadankaaga waxaan leenahay jacaylkii guureystay aniga oo ah Saki Xanad